Norway ayaa martigelisay musiibadii ugu weyneed ee ka dhacda dalkaasi muddo 100 sano ah, waxaana lagu soo waramayaa magaalada Drammen ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Oslo uu ka dhacay dabkii ugu xoogganaa ee waayadan ka dhaca dalka Norway. In ka badan 100 guri ayaa lagu soo waramayaa in ay ku basbeeleen, halka sidoo kale 400 oo qofood dad ka badan laga qaxiyay guryahooda maadaama dabku ahaa mid aad u xooggan. Howlwadeennada kala duwan ee booliiska, waaxda damdamiska, difaaca madaniga ah, ciidamada qalabka sida ayaa si wadajir ah waxa ay howlgalla lagu daminayo dabkan uga wadaan magaalada Drammen iyadoo ay socoto daminta dabkan maalintii shanaad. La taliyaha qaybta warbaahinta ee waaxda damdamiska gobolka, Kristin Grydeland, ayaa ku waramayo in ay hadda ku guuleysteen ilaa xad in ay damiyaan dabkan. Ha yeeshee waxa uu sheegay in heerkulku weli uu sarreeyo, haddana ay ka socoto sidii dabkani loo sii qabooji lahaa. Waxa uuna intaa ku daray in ay heegan ku jirto diyaaradaha loogu talagalay in ay dabka damiyaan, iyadoo qaybaha kala duwan ee damdamiska, booliiska, waaxda madaniga iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ee ku shaqada lehba ay ku howlan yihiin maalintii shanaad sidii ay u xaqiijin lahaayeen badqabka iyo daminta dabkan aadka u xooggan ee muddo 100 sano ka badan aan Norway ka dhicin. Waxa ayna boolisku sheegayaan in ilaa iyo hadda aysan gelin hay-adaha baaritaanka ku shaqada leh in ay baaraan dabkan maadaama heerkulku goobta uu aad u sarreeyo, daminta dabkana ay maalintii shanaad socoto. Waxayna sheegeen in baaritaan xooggan laga samayn doono deegaankan uu dabkan xooggan ka dhacay. Waxa ayna magaalada Drammen ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee ay Soomaalidu degto una dhow caasimadda Oslo. Arrintan ayaa waxaa lagu sifeeyay in uu yahay dabkii ugu xoogganaa iyo masiibadii ugu ballaarneed ee ka dhacda dalka Norway ku dhowaad muddo 100 sano ah. Waxa ayna hay-adaha kala duwan ku howlan yihiin sidii loo badbaadi lahaa dadka ka agdhow halka uu dabkani ka socdo. Waxaana lagu soo waramayaa ilaa iyo hadda qoysaska qaxay qaarkood in loo ogolaaday in ay guryahooda ku soo laabtaan, inkastoo qaar badan aanan weli loo ogolaanin maadaama xaaladda goobta aynan ahayn mid weli la isku halayn karo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.